marka qaar baad soo kadib nolosha kugu ciriiri ay noqoto go'aano adag aad u baahan tahay inaad qaadatid ay soo iska soo weysayso masaajidkii iska maran cidina aanay joogin dadku ay qafla ay ku jiraan iska gelaysaa ilaahay baad u tukanaysaa subxaanahu wa tacaala laba ragcado afar ragcado lix inta ilaahay ku siiyo kitaab quraan aad iska qaadanaysaa kitaabka quraanka aad iska akhriyaysaa wardigaas wada sax ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xusaysaa adkaartii baad akhriyaysaa nabi maxamed ku sallaysa sala allahu calayhi wasalam waad qaboobi marka laa shakka inaad qaboob masaajida waxa weeyaan waa guryaha ilaahay adduunka uu leeyahay subxaanahu wa tacaala kadalika wuxuu sheegay waxyaabaha la isku jeclaado ee lagu wada socdaa waa maxay ilaahay daraadii baa lagu wada socdaa laa watan baa lagu wada socdaa laa midab baa lagu wada socdaa waxa ugu qiimo badan wax lagu wada socdaa waxa weeye allah ma isku kaalmaysanaa saaxiib baynu nahay ilaahay raallimadiisa ma isku kaalmaysanaa adduunkan 4 maalmood baa la noolaanayaa waana laga tegi shak laga tegi adduunka kullu nafsin dhaa'iqatu al-mawt qofka marka aad adduunkan aad kala heshiinaysa la saaxiibaysaa adduun waa lagu isku iman karayo ganacsi waa la wada qabsan karayo waa la wada ciyaari karayo waa la wada kaftami karayo waa la isma intaasoo dhan laa ba'sa diintu ma diidin waxa ugu qiimaha badan waxa weeye socdaalkaa dheereen ilaahay ugu socday xabaal ku geli doonaan xabaal kaga bixi doonaan ilaahay hor istaagi doonaan su'aal adag la weydiin doono war walaalka iyo saaxiibkayo ma isku kaashanaa inaan imtixaanka ka wada baxno anna ma igu caawin ma igu kaalmeyn aniguna ma kugu kaalmeeya inanti inay saaxiibadeeda saa ku tiraa dhabankan maanta kugu yaala saa ma ahaanay quruxdan iyo sidan maanta aad tahay saa ma ahaanaysid dhalinyaro xooggan iyo dhabarkaaga saa ma ahaanayo waa laga wada tegay waa la daciif maxaa hadhaya laakiin waxa aan duugoobin ee aan gaboobin waa maxay waa ruuxa qofku ma gaboobo haddii taacada ilaahay ku badbaado hadduu ilaahay ku xidhayo marka uu yar yahay qofku ma gaboobo ruuxa gaboobin jirkiyo baali noqdo dhabarkiyo soo leedayo dhabankiyo jactaday abadan timihiyo wada ciroobay timiyo maxay tole ka daatay islaam maanta ma la ahaanayo falidaalika laba qofoo dar ilaahay ku walaaloobay dar ilaahayna ku kala tagay harka ilaahay dhaarta yawm qiyaama ayaa haysta subhanahu wa ta'ala